السلام عليكم kusoo dhawaada Samerica Code Academy. Maanta waxaynu focus gareynaynaa oo halkii ka sii qaadanaa aynu kaga tagnay PHP. Casharkan waa casharkii labaad ee PHP. Kii horena wuxuu ahaa lesson 1. Lesson 2 waa casharka labaad. Waxaynu maanta focus gareynaynaa oo eegaynaa database yar oo aynu sameynay iyo system aynu sameynay iyo display aynu sameynay. Waxaan information kii baynu qofkii ka qaadanaa, database baynu gelinaynaa, database tii baynu information kii kala soo baxaynaa based oo kolba qofku wuxuu inaga doonayo aynu shaashada u soo saarayna. Marka shayga ugu horeeya waxa weeyaan company dadka companiyada tusaale ahaan wasaaradda businesska oo kale ayuu company u yimi uu doonaya inuu isqoro. Markuu qofku dadna isqoraayo wuxuu ina weydiinayaa waxa la weydiinaya companyga magaciisa. Tusaale ahaan qofku wuxuu yidhi waxaan la yiraahdaa dahabshiil oo kale. dahabshiil uu ku jira systemka mid kale aan gelinaa waxaan odhanaynaa daryeel. Okay, daryeel construction company ayaynu odhanayaa. Marka waxaan leenahay daryeel ahaan maxay qabataan. Tusaale ahaan waxayna yidhaahdeen waxaynu nahay civil engineering and construction. qofka qofka tusaale ahaan le companyga ayaynu weydiinay magaciisa. iskana raana Maxamed Xuseen. website koodaynu weydiinay waxaan iska leenahay website fayga ayaynu soo gelinaynaa oo la yidhaahdo daryeel. phone numberkooda ayaynu weydiinay. tusaale ahaan waxaan iska nidhi 58. emailkaasaan iska gelinay. addresskooda waxaynu nidhi Cigaal International. inta qof ay shaqaaleysiiyaan 22. inay taxeskii bixiyeen haabeen leenahay. inta ay bixiyeen $100 baynu iska leenahay. deetna register baynu leenahay. Okay, wuxuu yidhi telefonkaa khaldan waayo 9 number baynu bixinay 10 inaan bixinaabeen. ka waran haddii aynu asagana company hore u sii jiray uu qofka inoo shaqeynaya oo iska khaldanaa maalintaas uu inoo qoray company hore u qoran. deetna wuxuu odhanayaa companyga horan ayaa loo qoray loo qoray companyga. marka waxaan ku celinaynaa daryeel baynu iskaga celinaa daryeel construction company. Okay, wax walba markay saxsan yihiin oo qofku waxaan wala buuxiyo waxaan dhamina waa qasab inuu qofku buuxiyo. haddii uu buuxin waayo systemku ku qaylinaya wuxuu odhanayaa waxaasad ka tagtay. dadna waxaan leenahay register. dadna database-kii ayay information keeni ay gasha. page-ku refresh gareysmayaa. okay, baad ku dhufanaysaa. dadna page cusub buu kusoo saaraya qof kale aad qoraysaa. dadna haddaba halkay information-ki tagtay halkan bay tagtay information-ki. imika Soomaaliya koobiyadan inay cusub construction company ugu dambayso. markan execute yiraahdo aan yiraahdo select all itus wax kasto ku jira database-kan table-ka users la yiraahdo waa inuu ituso company-gi cusba aynu qornay marka, right? uu asaga ugu dambeeyo waka daryeel construction company business category information code. haddaba waxaanu isnidhi qof dabadda jooga amba Mareykanka jooga ayaa wuxuu siiyay company-ga muxuu ahaa kambaniyada wax dhisa ee Hargeysa ka jiro Somaliland ka jiro dhan numberadooda amba bar. dadna qofku website noocan oo kale ayuu tusaale ahaan yimi. Okay, markuu qofku halkan yimaado haddii aanu wuxuu doonaya aanu ku dhufanin wixii oo dhan way tusinaysaa. wixii database-ka ku jiro dhan ay tusinaysaa. adiga arka daryeelana ugu dambayso kii ugu dambeeyay ee 32 uu yahay. ka waran hadduu qofku doonayo inuu yidhaahdo war waxaad tustaa dadka wax dhisa construction-ka dhisa. dadna search buu leeyahay kelmadu doonayaa buu construction buu ku dhufanayaa oo kaa way tusinaysaa. ka waran hadduu qofku company-gii hore u garanayaba sida dahabshiil oo kale uu doonayo numberkoodii uu doonayo so dahabshiil. dadna search buu leeyahay qofku waka dahabshiil business category ayuu tusinayaa waka saasuu tusinayaa. Alright, haddaba marka waxaanu baranay
sidii loo qoraayay laba waxaanu qoranay informationka halkii ay tagaysay markaynu qofka qorno saddex sidii loo isticmaalayay qofka dabadda jooga amba magaaladaba jooga numberkooda markaba u baahanay uu soo saari karaayo informationka uu heli karaayo haddaba waxaan odhan maxay suurtageliyey waa qaybta saddexaad ee raaci doonta salaada ayaan soo tukanaynaa mar waa isku soo laabanaynaa insha allahu asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu talk to you soon